بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muuqaalkii hore waxaynu kaga soo hadalnay taariikh kooban oo ku saabsanaa imaamkii weynaa Abu Xaniifa raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica maantana waxaynu ka hadli doonaa taariikh kooban oo ku saabsan Imaamu Maalik Abu Cabdallah Maalik ibnu Anas ibnu Maalik waa imaamka madhabka Maalikiyada oo ku badan galbeedka laga bilaabo Suudaan ilaa Morocco waxa uu ku dhashay Madiina taariikhdu markay ahayd 93 Hijriyada waa sanadkii uu geeriyooday saxaabigii weynaa ee Anas bin Maalik Allah ka raali noqday imaamku magaalada Madiina meel la ugama socdaalin aan ka ahayn mar uu xaj ama umro u baxo awowgii Maalik ibnu Abi Caamir waxa uu ka mid ahaa culimmadii taabiciinta saxaabadana wax ka bartay sidoo kale imaamka aabihii Anas iyo adeeradiiba waxay ahaayeen culimo yaraan ayaa uu ku bilaabay waxbarashada 21 sano markii uu jirayna waxa uu fadhiistay inuu dadka wax baro ilaa uu ka gaadhay heer adduunka dacaladiisa looga soo safro waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin dheer oo laf weyn gadh weyna leh timo cad iyo indho buluug ah leh midabkiisuna ahaa caddaan xoogaa casuus ah ku jirto waxa uu ahaa muxaddis aad ugu xeel dheer aqoonta xadiiska imaamu Maalik waxa uu matalayay madrasada ahlul xadiiska wuxuuna aad ugu soo horjeeday reer Ciraaq oo madrasada ahlul ra'yiga u badnaa ardaygiisii imaamu Shaafici ayaa ku tilmaamay haddii culimada laga hadlo xidigoodu waa Maalik imaamka aad ayaa looga heebaysan jiray oo marka uu cashirka dhigayo qof la hadlaya ama la hadlayay oo fiirinayay ma jiri jirin mana uu hayn dadka isyeelyeela oo waxayna aqoon u lahayn iska dhex gala waxa uu ku jawaabi jiray haa iyo maya ama garan maayo lagumana dhiiran jirin in la yidhaahdo maxaad sidaa u leedahay ama aad u tidhi mar ayaa waxa u yimiday nin socdaal dheer oo 6 bilood qaatay soo galay oo dadkiisii u soo direen in uu mas'alo weydiiyo imaamka markii uu su'aashii weydiiyey ayaa uu Maalik ku jawaabay garan maayo ninkii oo yaaban ayaa ku yidhi maxaan dadkaygii ku yidhaahdaa waxa uu ugu jawaabay waxaad ku tidhaahdaa Maalik waxa uu yidhi garan maayo khaliifkii Abu Jacfar al-Mansuur ayaa ka codsaday inuu qoro kitaab dadka lagu kulmiyo kadib markii khilaafkii batay kitaabkii waa uu qoray laakiin ma ogolaanin in dadka oo dhani hal kitaab lagu koobo waa kitaabka imaamkani uu caanka ku yahay ee la yidhaahdo al-Muwatta oo ka mid ah diiwaanada xadiiska ee waaweyn qoristiisa iyo tifatirkiisa waxay qaateen ilaa iyo 40 sano imaam Shaafici oo yaraan ku xifdiyey waxa uu ku tilmaamay in qur'aanka kadib una jirin kitaab ka saxsan dhanka xadiis warinta imaam Bukhari waxa uu sheegay in silsiladaha wariyaasha xadiiska midda ugu heerka sarreysa ee ugu saxiixsan ay tahay Maalik Allah u naxariistay waxa la sheegaa in dad badan ay xasteen taasoo kaliftay in ay been ka sheegaan kuna diraan dawladdii Cabbaasiyiinta waxay geeyeen war oranaya Maalik beecadina waxba kama jiraan ayuu u arkaa wuxuuna dariishanayaa xadiis oranaya ninka la khasbay daraaqiisu ma bannaan arrintaas ayaa lagu ciqaabay imaamka oo lagu shaabugeeyey gacmihiisina la kala jiiday ilaa garbihii kala siibmeen inta timaha laga xiray ayaa awr la saaray dabadeedna dadka la dhex mariyey oo lagu yidhi isa sheeg ciddii igaranaysa way igaranaysaa ciddii aan aqoonina Maalik ibnu Anas baan ahay waxaana leeyahay talaaqa ninka la khasbay waa waxba kama jiraan waxay rabeen in ay baxdilaan oo uu cudurdaar sameeyo laakiin aragtidiisiibuu ku adkaystay culimo badan ayaa sidaasi si la mid ah loogu xadgudbay laakiin alle waxa uu uga kordhiyey sharaf iyo sarrayn waxaa jirta dhacdo dhex martay imaamu Maalik iyo nin ay saaxiib ahaayeen oo zaahid ahaa khalwadana jeclaa yacni kelinimada jeclaa saaxiibkiisaas caabidka ahaa ayaa warqad u soo diray isaga oo ku boorinaya inuu ku dadaalo kelinimada iyo cibaado badan oo uu cilmiga ku mashquulsan yahay yareeyo Maalik waxa uu ku jawaabay alla sida uu arsaaqda u qaybiyey ayaa camaladana u qaybiyey waxaana badan in salaada loo fudeediyey laakiin soonku ku adag yahay iyo mid kale oo sadaqada loo fudeediyey laakiin soonku ku dhib yahay iyo mid kale oo jihaadka loo fudeediyeyba faafinta cilmiga waxa ay ka mid tahay camalada kuwa ugu fadliga badan waxaana ku raali noqday inta la iga fudeediyey umana malaynayo waxa aan samaynayaa inuu ka hooseeyo waxa aad samaynaysid waxaana rajaynayaa in labadeennuba aynu ku sugannahay khayr iyo suubanaan imaamu Maalik waxa uu geeriyooday sanadkii 179 Hijriyada isaga oo 86 jir ah waxaana lagu aasay Baqiic alle waxa uu ku galadaystay cimri dheer caqli badan
cilmi ballaadhan iyo ummadda oo aqbashay imaamnimadiisa. Allah u naxariista imaamka, wanaaggii ummadda u sameeyeyna ha ka abaalmariyo.